injineer guuleed maxamuud wuxuu ka mid yahay dadweynaha ku nool caasimadda Puntland Garowe gaar ahaan waa shaqaalaha hay'adda ARC xafiiska Garowe injineer guuleed waxa uu gurigiisa ku dhex samaystay mashiin uu faraha lagu dhaqdo kaasoo aan taabanaynin gamcuhu balse lugaha lagaga shaqaysiinayo runtii waa fikir aad muhiim u ah balse u baahan in la hormariyo waxaan weydiin doonaa bal waxyaabaha ku dhaliyay iyo sidoo kale hamiga uu ka leeyahay barnaamijkan ku soo dhaw tiyaatar baro bal waxaad ka warbixisaa mashiinkan aad samaysay walaal aad baad u mahadsan tahay baashan sidaa u jeedaan horta anagu waxaan nahay ururka la yiraahdo American Refugee Committee aniguna waxaan nahay engineer basekiisu yahay Garowe Soomaaliya sida la socotaan COVID-19 sida loo joojin lahaa spreadka ama faafidda uu faafayo waxa muhiim ah inaanan la taaban meelaha serviceka ah ee dadka qofka qaba iyo qofka aan qabinba ay ku kulmayaan sidaa darteed baa waxaanu sameynay qalabkan oo hand washingka oo qofka marka uu soo galo meelaha caafimaadka iskuulaadka masaajidada meelaha publica qofka markuu soo galo uu gacmihiisa iska dhaqayo markuu tagayana uu saasoo kala sameynayo waxay ka kooban tahay haanta biyaha oo aan biyaha ku shubnay oo hadda tani qaada 160 litir laakiin qofka uu samaysan karo haan in kasta ay la eg tahayba waxaan ku rakibnay tuubo yar oo halka biyaha ka siinaysa waxaan saarnay oomadii ama saabuuntii meeshii ay fuuli lahayd intuba waxay ku shaqaynayaan foodkaas oo lugta la taabanaya ku shaqaynayaan soo qofka taaban marka hore wuxuu taabanayaa saabuuntii sida la socotaan waa ka saabuuntii waatana marka uu ilaa 40 second oo dhaqdana wuxuu taabanayaa biyihii oo wuxuu taabanaya biyihii uu isaga dhaqaya marka systemka waa sidaas weeye habkaan u sameynay waa wada mechanic weeye halkaas springkaas yar ama moolada yar baanu gadaal ku rakibnay si ay marna u bushkarayso hoos ugu shubto marna kor uga kacdo biyaha tan sidaas oo kale aan u sameynay istaankaas birta hollow birta steel hollow ay ka samaysan tahay midna waa 2.5 midna waa 2 oo isdhex gelinay iyo istaankaas marka waxaan isleeyahay systemkani waa system locally available oo local kale oo qof walba uu samaysan karo ina wanaagsanaan lahayd in la isku lagu daydo oo sidaan oo kale aan ku baahino meelaha ee public ah way mas'alada adigu xabadan inaad ka badisido aad mujtamaca u bandhigtido oo meelo badan oo hadii aad taageer heshid inaad geysid meelaha isgeysid oo kale meelaha dad ku badan yihiin inaad geysid hadda waxaan ku rajaynahay ururkeena American Refugee Committee inaanu xogaa badino oo u qaybino meelaha health facility-ga oo anagu aanu taageerno health facility-gaas iyo meelaha kale iskuulaadka masaajidada waanu rajaynaynaa insha Allah aan ku hanweynaa inaanu project kooban oo sidaas oo kale aan Garowe ka qaybino hayeeshee waxaan isleeyahay ujeedada ugu muhiimsan oo sameynay waxa weeye in dadka aan u bandhigno habka fudud ee qof walba uu samaysan karo marka hay'aduhu iyagu ay samaysan karaan dawladdu iyo authority iyagu ay samaysan karaan si ay meelaha muhiimka u dhigaan marka waxaan xoog u saaraynaa in waxani costiga lagu sameeyay oo cost yar yahay materialkiina wadanka laga helayo qof walbana uu samaysan karo ujeedadu waxa weeye meel walba oo muhiim ah in la dhigo si ay u yaraado cudurkan faafintiisa warjinaya in mustaqbalka uu bahalkan qayb ka noqdo inuu faafitaanka cudurkan hoos u dhigo marka maxaad ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa bulshada Soomaaliyeed wallahi waxaan jeclaan lahaa inaan aragno qalabka noocan oo kala iyo kuwa lamidaba in aad loo isticmaalo oo meelaha publica aad looga helo ama hay'adii habixisa authority habixisa ama niman kale oo qofkii shakhsiyaad habixiye in waayo waxa ugu muhiimsan ee lagu la dagaalami karo COVID-19 waa in ay transmissionka ama cudurka faafaya in la joojiyo sida ugu fiican la joogin waxa weeye in qofka uu san taaban meeshii meelaha ay dadka ay wada taaban marka waxaan jeclaan lahaa inaan arko in hay'adaha iyo dawladda iyo qof la iska kaashado oo meelaha dadka isugu imaanayaan la dhigo wash la dhigo oo dadkuna ay marka lagu dhiirigeliyo inay gacmaha dhaqdaan waa tahay daawadayaal sida u jeedaan hadda anigu waa farxalanaya waxaan isticmaalayaa agabkan uu sameeyay injineerku ila socda shaambada sidoo marka hore la sharax xasaasad gacanta ugu shubanaysa saasaad ugu faraxaynaysaa farahaas ugu dhex gelinaysaa dabeedna tii kale biyaha saa ugu shubaysaa wata si yara fudud
guud ahaan waan farxashay mana taaban saa ujeedaanba agabkii meesha yaalay oo dee way farahay way bad qabaan markaan farxashay iyo markii aan tegayba waxaan isticmaalaa agahay cabdiqani axmed maxamed warbaahinta tiyaatar garowe